kusoo dhawaada barnaamijkeeni astaana horumaraad uga barateen Puntland TV studiogiisa Melbourne ee wadanka Australia. waa anigoo Cabdi Cilmiya oo idinla socodsiinay barnaamijkan maanta waxaan ku eegaynaa waraysi aan la yeelanayno nin ganacsada ah oo magaciisa la yiraahdo Cabdiqani Faarax. Cabdiqani Faarax waxa uu leeyahay company weyn ee ah transportiga ama gaadiidka oo nooc gaar ah oo aada midka dadka curyaaminta qaada. waa company ugu horeeyay ama aan iraahdo qof Soomaali oo aasaaso ee noocan oo kala ah. company kan waxa loogu talagalay in lagu daryeelo dadka marka aan gawaarida wadan karinin ama disabled ka oo xanuunsan oo awood u lahayn inay raacaan public transportiga ama gaadiidka dadweynaha. company kan Cabdiqani wuxuu aasaasay muddo hadda laga joogo dhowr sanadood ka hor. horey wuxuu ugu jiray ganacsi kala gedisan oo ah hoteelada iyo maqaayadaha, kadibna wuxuu u wareegay guryaha iyo real estate ka wax loo yaqaano. Cabdiqani sababta ku kaliftay inuu shaqooyinkii uu horeeyay intuu ka baxo uu galo transportiga ama gaadiidka asaga ayaa inoo sharaxi doona. Cabdiqani kusoo dhawow Puntland TV studio Melbourne. Cabdi waad mahadsan tahay, waan ku mahad celinayaa. company la yiraahdo Total Care Transport for People with Disability afka Ingiriiska waa company u adeega ama qaada ama daryeela dadka disability-ga ah, dadkaasoo ama jirka curyaaminka, maskaxda curyaaminka ama iyagoo dhanba jirkooda iyo maskaxdooda iyo caqligooda uu naafo yahay. waa saad hadalka u dhigtay waan soo maray ganacsiyada badan oo kala duwan baan soo maray. qofka bini'aadanka markuu ganacsi galayana markasta waa fursad buu raadiyaa. fursadaas oo laba arrimood u kala baxda, midii waa impactiga bulshada ay ku leedahay shaqada aad qabanayso, midna waxa weeye financially in meeshii aad reerkaaga iyo biilashaada iyo dadka shaqaalahaaga inaad bixin karto. labada danood adoo fiirinaya yaan haddana waxaad marka ugu horeysa eegaysaa demand and supply wax la yidhaahdo. wadankan Australia fursado badan baa waa qaarad dhan oo ay dhaqaale iyo lacag haystaan. waxa Cabdi uu mar kasta la eegaa, aniga shakhsiyan aan eegaa baahida ka jirta meesha aan galayo, waxa ka soo bixi kara, competitionka ka jira. area badan waxa jirta dadkii nooga soo horeeyay wadankani ay meel kasta xidheen oo ka gali karin. marka demand and supply baan eegnay. dadkaas dad aad u dhiban bay ahaayeen muddada 10 sano hadda ka badan ee aan ku soo jiray businesskan. waxaan garowsaday oon arkay in aan dadkan service u provide gareyn karo. shaqooyinkii ugu horeeyay la offer gareeyana shaqo na lagu dayay oo dad cid qaada la waayay oo behavior issue qaba, mental problem qaba, physical problem qaba, qayladooda iyo dhibaatadooda iyo loo adkeysan waayay yaana lagu tijaabiyo ilaa dad kuwa qaado. muddo sanadan anigu dadkii qaadaya kamid ah dadkaas. kadibna waxaan noqonay reliable company 10 sanadood bay ahayd. laba danood baa bulshada Australia ugu jirta oo aan kamid ahay. mid waa dadkan oo nu ka bedelay 4 saac 5 saac 6 saac bay isugu jireen in la qaado. dad waxaan u qaadnay 30 sano 20 sano guryahooda aan kor uga bixin oo cid kasta diiday inay qaado. haddana dadka waxaan u geynaa barnaamijyada danaha ay leeyihiin meel u socdaan waqti go'an ilaa aanu soo gaarsiinay in 100% reliability or on time performance wax la yiraahdo. waa gartay asaasida aad asaastay wuxuu ahaa mid aad ku eegaysay runtii in dhaqaale aad ku abuurto. mid kale waxaad noo sheegtay in ay jireen dhib oo dad badan ay companiyo badan ku dhibtoodeen qaadista dadka. marka leedahay waana lagu tijaabiyey, waxaad ula jeedaa waxaa lagu tijaabiyey bal dadkan Soomaalida ama Afrikaanka ama midabkayga oo kale leh inay qaban karaan shaqadaas miyaa ahayd macnaheed? ma Cabdi mayna wax midab ku saabsan mayna ahayn. aniga shaqada apply gareeyay markaan fikiray oo baahida dadka disabled ka arkay gobolka Victoria magaaladiisa Melbourne. shaqaan ani doonta bay ahayd. proposal baan isku hagaajiyay inaan keeni karno safety, customer care, safety, reliability and cost effective business. That's the 4 pillars of the business aniga aan leeyahay. customer care in dadka la daryeelayo, safe in loo transport gareynayo, in reliable noqonayno oo waqti kasta aanu meesha joogayno,
iyo in aanu cost effective noqonayno oo dadka ay awoodi karaan waxa aanu anagu siinayno taasoo aan anigu markaa la imid caqliya de ruuxi hadduu intaasoo uu awoodi karo wax go-an maalintii then kambaniyo badan intaan isu keena waxay noqotay inaan idhaahdo si costigu idinka yaraado dadkiina u awoodaan anigana businesska aan u raangareeyo sheergareeya costiga oo gaariga westiga u socda wixii westiga u socdaa sii qaado oo isagoo on time iyo ransheed iyo schedule ku xisaabtamaya eastiga kii u socda east marka tijaabadu waxay ahayd ku timid haddaan su-aashaadii dib ugu noqdo dadkan ma qaadi kartid wayna adag tahay inaad qaado intaasoo sana la qaadi waay taas waa behaviorka difficultyga dadka aanu kala kulanay aniguna businesska waan ku cusbaa muddan ayaan qaadayay keligay ilaa markaa gaarida ma aan gadano kunturaad kale gaari saddexaad gaari afraad darawaliin badan aanu tababarno aanu samayno system iyo procedure aanu raacno ilaa iyo businesska ay trusted noqoto waxaana hadda Australia xataa marka la isku daro the largest disability transport company dadka curyaamin dadka u adeega kamaniga ugu weyn yaanu nahay oo wax organize anaga baaba jirnaan u malayno waa gartay waxaan ogahay 40 gaari inay wadada saaran tahay dadka ku shaqeeya oo gawaarida wada imsa Soomaaliya waxaan u malayn dadka hadda Soomaalida ee nala shaqeeya ay way yar yihiin waqti waxa jira Soomaalidu ay 80-90% ahayd Soomaalidu dad waxaan nahay thinkers oo mar kasta fikiro oo maskaxdoodu ama meel fiican hagaysa ama meel xun shaqaysan nahay dad aan hal meel badan waqti badan joogina waa nahay marka waxay keentay dhalinyarada inay qaar badan iga tagaan oo shaqooyin kale iyo opportunity kale iyo ay raadsadaan marka waxaan u malayn ilaa iyo 6 baan u malayn hadda inay Soomaalidu yihiin dadka inta kale waa ajnabi u badan yahay serviceyadaas yani dhaqaalaha aad ka heshaan oo inta oo dad ay ka shaqeysa Cabdi dhaqaalahaas xagee ka yimaada yaa baxsha waa dhaqaale ka dhaxeeya qofka shakhsiga ee dhibaatadu haysato ama dadka mas'uulka ka ah ee duty of care ka waxa la yiraahdo dadka u haya familygooda Ministry of Transport iyo dawladda Australia gaadiidka wasaaradda gaadiidka loo yaqaano waa sax weeye Department of Human Services hay'adda arrimaha bulshada daryeelka bulshada yaan u malaynaya inay af Soomaali ku noqonayso intaas ay isugu yaa ka wada shaqeysa qolba qaar bay bixisa qolba way wada share gareeyaan marka gaadiidka qaar kaarar baa lagu bixiyaa baabuurta credit kaarada ku jira baa lagu bixiyaa oo dawladda bixisa qaarna waxaa bixiya sida nidaamka transportigu uu yahay la wada socotaanba Soomaalidu ay la socoto hay'adaha liira loo yaqaan NGO-ga ama aan lacagta faa'iidada raadina daryeelka bulshada kuwaasa yaa lacagta bixiya serviceyada noocaan Cabdi marna ma ku fakartay bal dhulkeenii inkastoo waxyaalo badan oo ay ka muhiimsan yihiin oo ka horeeyaan runtii nolosha dhulka aan ka nimid aniga adigu ay ka muhiimsan tahay haddana ma ku fakartay service noocaana ama daryeel noocaana in dhulkeenii laga hirgelin karo mase ku fakartay inaad adigu ka hirgeliso hataa Soomaaliya ka dhaf meel kale oo Afrikaan wadamada Afrikaanka waa su'aal fiican weeye Cabdiyow midi waa xaqiiq weeye in dadka Afrika jooga ama Soomaaliya jooga inay aad iyo aad baahi u jirto Soomaaliya in dadkan la daryeelo midda labaad aragtidayda shaqo ka muhiimsan oo Soomaaliya ama dawlad ama qoys ama gobol ama ummadi qaban lahayd ma jirto kuwana noogu taageero waa markasta inaynu gacan siino ninka ama lugaha la ama maskaxda la ama indhaha la ama dhabar kale aan socon karin shaqadiisa shaqo ka horeysa inay jirto ma ba ahaynba dhibaatooyinka meesha naga haysata taas weeye marka dadka curyaanka hadda markaan Afrikada markaan tago curyaamin badan dariiqa ku arki maysid wheelchairku ku soo bixi lahaa ma hayo qof riixayo oo volunteer u sameynaya ma jiro gaari lagu qaadaya ma jiro ruuxi waxa laga yaabaa si guri ugu jiro meelaha u jiifo jirka bini'aadanka hadduu dhaqdhaqaaqin banaan arkin inuu sidayba uu ku dhinto oo saas ku dhinto qaraabadiisuna marba waxay siin karaan ama biyo ama cunto ama caano marka baahidaasi way jirtaa baahidiina kharash bay u baahan tahay saad ula socotaba
halka baabuure dadka curyaaminta qaadaya baabuurka markaad $50,000 ku soo gado $30,000 lacag ku dhow markaad si fiican u geliso ama $20,000 ba iska dheh inaad geliso weeye oo lagu xiro qalabkii la bedelo wixii hore in laga daadiyo baabuurka marka waa wax dhaqaale ku xidhan in dadkii la daryeelo waan ku arkay wadamada qaarkood oo East Africa magaalada Dirdhabaleyda waan ku arkay niman disability care iyo waxba ay sameeyaan wheelchair bixiyaan oo manual oo halkan iyo meelaha dibadda laga qaado marka waa baahi jirta tan ganacsiga aniga xaggayga iyo su'aashada weydiisay inaan xagga ka furo wixii volunteernimo aan qaban karay cidii caqliga la timaado ama wheelchair halkan ka ururiyo ama aan waxaan ku tarin karnaa aan ku tarno laakiin viable ma noqonayso ama isma bixinayso in business ahaan xagga qofka uu dhaqaale ka raadiyo ma fundingkeedina ma jiro dadkuna dhaqaalaheedii ma haystaan dhibaataysana noocaasi meelaha qaarkood meelaha ugu daran waxa weeye meelaha dadka Soomaaliyeed ku dhibaataysan yihiin qaxootiga oo kale xiriyaha qaxootiga oo aad aragtay la soo daayay wiil ama gabar ku dhashay xirada qaxootiga ka bacdina ilmo ku dhalay dawladdii iyo nidaamkii yani u doodi lahaana markaa uu tabar yar yahay arrintaas oo kale maxaad ka oran lahayd cabdiyow ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya markay burburtay dhibaatooyin aad u badan dadka Soomaaliyeed ay gaadheen xiriyo qaxootiga oo adduunka meel kasta kaga yaala la kala galay xiriyahaasi waa meelaha dadka ugu dhibaato badan ugu darxumada ugu badan ay gaadhay almost waxaad dhihi kartaa waa xabsi furan waa open prison meelahaasi wadamo badan oo caalamka ku yaala oo meelo badan oo kala duwan ku yaala ummadda Soomaaliyeed bay hay'adaha qaxootiga iyo international community iyo biil kaga qaataan biilkaasi waxa laga yaabaa dadka Soomaaliyeed ee magacooda lagu qaadanayo inayna waxba ka gaadhin meelaha darxumooyinka ugu badan ay ka jiraan hadda aad iyo aad qof kastoo Soomaaliya u baahan yahay inuu ka fikiro oo wuxuu cuna iyo meel u seexdo iyo wuxuu cabo isaga iyo ubadkiisu haystaan waa dadka xiriyaha Yemen ku jiro kala maanta maxay yiraahdeen jixiime iyo jahannama la yiraahdo ugu yiraahdeen qofka dad waxa jira 40 sano 50 sano iyagoon gaadhin iyo ku indhabeelan xiriyaha qaxootiga say saxariya u taagnaayeen ciidu indhaha uga galaysay gabdhaha Soomaaliyeed darxumo badan iyo dhibaatooyin badan baa loo geystaa iyo hooyooyinka Soomaaliyeed caruurta iskuul ma laha meeshii biyo ma laha waxa la siiyo international community ku siiyo waxa laga siiyay way yar tahay marka dadkii waxay noqdeen dad meeshii inay iska jooga lacagna lagu qaato ama dawladda Yemen ha ku qaadato ama meel kale lagaga qaato caalamku in macnaha ay u arkaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ku xareysan yihiin ba in dad dhaqaale ka soo gala in noqoto not humanitarian case ba ayna noqoninba dadkaas hadee waa qaxeen dhibay la kulmeen laakiin waa dad iyagu markaa maanta haddii wadankii dib u soo hagaagayo soo noqon kara oo waxa loo qaataa inay dhulkooda ku soo noqdaan yaa ka hortaagan inay soo noqdaan waa su'aal fiican way Cabdiyow qofka dadka bini'aadanka qofba marxalad buu ku jiraa gabadha ama halka ku dhalatay ama iyadoo gabadh yar tagtay 20 sano meesha halka joogtay wax kasta waxay u baahan yihiin financial means ama dhaqaale aad ku dhaqaaqdo mid aqoonaad jira dhaqaale aad ku dhaqaaqdo u baahan yahay qofka gabadha ku jirta xalada jixiima ee jahannama ama konton la siiyo ama qaarkood ba weligood boqolaal kun aan cidna shilin siinin ma awoodo mana karto inay badda talowdo inay doon raacdo inay lacag meel ka raadsato marka dadkani waa dad gurmad Soomaaliyeed u baahan dawlad Soomaaliyeed ka hadasho u baahan bulshada Soomaaliyeed ka hadasho u baahan hooyooyinka Soomaaliyeed ka hadlo u baahan waa dad anagoon iyagana eedaynin inaan anagu waxaan ka qabanay inuu ka qabano waa mas'uuliyad qof kasta oo Soomaaliya saaran dadka in loo gargaaro dhibaatadooda laga hadlo Liibiya kuwa inta shaqo iyo kontraad loo ballan qaado sanduuqadaha lagu xidhayo kadibna $5,000 laga qaadayo kuwa lacagtii waxa la ii sheegay qoliyo intay lacagtii bixin kari waayeen oo cid u soo dirta waayeen la dilay oo la yiri businesska naga halaabay hadaan dili weyno marka caalamka Eritrea xiriirada kuwa ku jira waa dad aad iyo aad u dhibaataysan waana walaalihiin Soomaali meel kasto joogtaanba waa hooyooyinkiin waa gabdhihiin waa walaalihiin waa odayaashiin waa ubadkiin waa Soomaali qabiilna ma laha difference-na ma laha company-gan transportiga oo noocaan markii laga eego dhinac waxa weeye Soomaaliya lagama awoodo lama keeni karo haddana dhibaatooyin badan baa ka hadashay oo yani khuseeya cid walba Soomaaliya sida u tiri maxaa is leedahay horumar ah
oo ilaa hadda la taaban karo oo dadka Soomaaliya halkan jooga ay gaareen markaad ka fiiriso dhinaca jalkeerada transportationka waxyaalo kale mase fakar kale oo ka gedisan oo business oo kale oo la geli kara fikrada ku biirin kartaa dadka barnaamijkan daawanaya community-ga Soomaaliyeed Australia jooga waa dadka ummadaha Afrikaanka iyo ummadaha ajnabiga oo joogta waan cusubnahay wadanka waan ku cusubnahay haddana waxaan u nahay dadka Soomaalida waa dad tiin karisa ama ribaadiya ha noqdo ama professor ha noqdo waa dad isku daya inay opportunity meel kasta ka raadiyaan gobolkana waan ku cusubnahay saasay tahayna hadda waxaan u joognaa heer dadka Soomaaliyeed halkan jooga aan almost middle class noqon anagoo dhani caruurta Soomaalida halkan joogta waxbay u bartaan inta tabartooda diinta gacantay ku hayaan iyo akhlaaqdooda waalidku way shaqaystaan fursado badan iyo business hadda moolal baanu leenahay iyo dukaamo aan nalagu yaqaano ama ha noqoto Footscray ama West Heidelberg ha noqoto ama Dandano xageeda ha noqoto marka waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ee Australia joogta dhaqaale ahaan waa fiicannahay waxbarasho ahaanna waa fiicannahay diin ahaanna waan fiicannahay khayr Allah iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo hooyooyinka Soomaaliyeed masaajid hadii la dhishay gacanta ku haya caruurta iyaga masaajidada geeya dhaqaalaha iyaga ururiya marka su'aasha saad ii weydiisay hadaan u gartay inteena badan Soomaaliyeed halkan joogta waxaynu nahay self employed ama dadka naftooda u shaqeysta way yar yihiin dad u shaqeeya aniga I will encourage every Somali inuu isku dayo intuu isagu shaqeysan karo ismaamuli karo inuu shaqeysto una qof u shaqeynin shaqadaad soo hadal qaad imisa saacadood baad shaqeysaa way cabdi uma xadidna waqtiga aan shaqeeyo inkastoo hadda sidii hore aan ka fiicnahay businesskan markaan abuuray waxaan u malayn 6 sano 7 sano ugu horeysay 90 ilaa 100 saac baan weekii shaqeynayay waxaygu waa iska 24 hours oo arrimahan aan ka shaqeynay isbedelkooda badan wixiina mar hadii accountability iyo customer service iyo on time performance of Soomaali ahaan wixii waa in waqti dadka lagu qaado ama waqti lagu geeyo meeshaad ka qaadid dad baad iyo ku sugay inaad qaado waa in meeshaad geynayso qof baa banaanka dadka u taagan baabuurti waa inay nadiif yihiin baabuurti waa in la maintain gareeyaa waa in operation room uu jiro oo waxaan samaysanay hadda baabuur wax la yiraahdo GPS tracking markay dad cusub maalin kasta week kasta intaas qof oo customer cusub baan u yeelanaa oo businesska kor bay u sii kacaysaa week kasta marka waa inaad gawaaridii badisaa waxaad adigu leedahay waxaad meel ka soo kareysato waxaad subcontract siiso laakiin waxaa soo dhan reliability-goodii safety-goodii iyo service-goodii dadka si ay ula dhaqmaayeen baabuurta si loo sameynayay nadaafadii baabuurka waqtiga loogu talagalay meesha inuu tago waa in markasta dad ka jawaabaan marka taasi waxay noo sahashay GPS kaasi inaanu gaari kasta saacad kasta meeshuu joogo meeshuu u jeedo wuxuu wado inaanu halkaa ka aragno xafiiska marna ma ku fakartay in yani aad gaarsiiso dadkaagii inay muhiim tahay nolol iyo horumar aan la gaari karin ilaa waqti badan la shaqeeyo kule cabdi waqtiga aad meesha geliso baad rajaynaysaa inuu kaaga soo noqdo adigu waad aragtay business baad leedahay saacado badan baad shaqaysaa waxa weeye gaaladu waxay dhahaan investment return meesha waxaad geliso waa inay wax kaaga soo noqdaan waa adigi iyo qoyskaaga iyo shaqaalaha adigi way ku dhaafaysaa markaad 20 qof 30 qof 40 ruux shaqo siiso dadkaasi guryahoodii iyo caruurtoodii iyo businesskeen iyo qaraabadoodii iyo kharashkoodii waa inuu businesska ka soo baxa marka dambe arrintu adigu way ku dhaafaysaa dadkaasaad fiirinaysaa waxaad ii sheegtay in saacado badan aad shaqayso يعني 94 ساعة Soomaali markaa joogtay 94 saacadood miyaa shaqayn jirtay cabdi umay ma ana shaqayn jirin waqtiga qiimaha uu leeyahayna ma aanan saa u garanaynin bulshada iyo environment-ga aad ku kortay waa ku xukunta tii waynu isbedelo dibadda hadaan nimid waa inaan saacado badan shaqeyno si aan horumar u gaadhno sidaan qaraabadeena u caawino saynu Soomaali nahayn isu caawino marka waxa muhiima inaynu danaheena ku foofno oo aynu si aynu qaraabadeena iyo dadkeena saanu u sameeyno wadankeena aan horumar u gaarsiino inaynu saacado badan inaynu shaqeyno aad bay muhiim tahay oo waqtigeena waqti aakhiri adduun wax soo saar leh inuu ahaado waqtiga aan haysano dadkii Soomaaliyeed aynu ka soo jeednaa waxaanu la soconaa waqti badan lama shaqeeyo horumar intee la eg baa la gaari karaa baad leedahay waqtiga halka aan shaqeyno haddaan inta dib u noqono dhulkeena gelin
haddii waxaan aaminsanahay Soomaalidu inay waa dad aad u caqli badan dad aad u maskax badan dad aad u firfircoon laakiin saacado badan haddii la shaqeeysan halkan uga shaqeyno inagoo dhanba gabigeena dadkeena Australia jooga ama dibadda jooga u shaqeyno inaynu wadankeena dhisi lahayn inay dhibaatooyin badan iyo conflict badan oo haysa inay xalin lahayd inuu ruux kasta dantiisa uu ku foofi lahaa bulshaduna ay faa'iido badan heli lahayd wadankuna dhismi lahaa Soomaalinimaduna ay adkaan lahayd baan aaminsanahay عدوان waxaan ogahay in aad yani involve ku tahay community-ga adoo businessman oo noloshaadii dhisaya haddana inaad qayb weyn kaga jirto community-ga marka la eego dhinaca isku xirnaanta iyo waxqabadka iyo dhisidda hadda dhismihii dhawaan la gaday ee masaajidka weyn ahaa oo weli hawshii socota xagee buu maraya waad mahadsantahay cabdi waa barnaamijkaasi waa barnaamij aad muhiim ah waa masaajid Soomaali leedahay hooyooyinkooda caruurtooda waa ciroolaheeda meel ay wax ku bartaan oo Ilaahay ku caabudaan isugu yimaadaan weeye building baanu dhismo weyn baanu gadano aad u ballaaran oo ummadda ka fog oo cid inagu qabsaneen oo baabuurta meelaan dhiganale buildingka waxaan u malayn 2 milyan iyo badh Australian dollarka Australian ku nagu noqday 1 milyan iyo 200 iyo 1 milyan iyo 100 midkood baanu ururinay 10 bilood oo soo socota waa lacag ilaa 1 milyan iyo badhan baan laga doonayaa hadii Ilaahay yiraahdo waana bixin doonaa Soomaali baan nahay Muslim baan nahay dad wax bixiyaan u nahay 500 oo qoys oo min 2500 ay ku xidhan tahay waad aragtaan oo daris buu kula yahay xafiiskaaga iyo meesha adiga kambanigaaga xafiiskiisa uu daris la yahay waa aad buu muhiim u yahay qof kasta oo Soomaali ah oo meel kasta uu jooga barnaamijkaas sidii Brisbane iyo meelaha kale baan u caawinay in la caawiyo oo ay isqoraan oo barnaamijkaas iyagoo community-gooda u daneynaya diinta islaamka ee mas'uulka aan ka wadanahay aan u daneynayno in arintaas wax laga qaato horumar aad u weyn bay noo tahay dhul inta laga inaan yeelano oo masaajid aan ku yeelano xaafadan waanu u baahnay waana ku badannahay barnaamijkeeni astaan horumar maanta caawa martida noogu ah Cabdiqani Faarax oo aan businessman ah company-ga Total Transport director-kiisa ah inta ayaan ku soo gabagabeynaa intaan mar kale kulmayno waa Cabdi Cilmi oo leebar usbuuca dambe iyo astaan horumar kala socda Puntland TV studio-giisa Melbourne ee dalka Australia Cabdiqani waa aad biyo baa mahadsantahay mahadsantahay Cabdiyo thank you